Asalaamu calaykum asxaabta kusoo dhawaada channelkayga iyo video cusub maanta. Waxaan idiin wadaa ceeshkan aadka u jilicsan oo sida fudud loo sameyn karo. Hadaa ceeshkan baratid sida loo sameeyo uma baahnid inaad supermarket kasoo gadatid. Dad qaar ayaa jira oo jecel inay supermarket kasoo gataan jecleen inay guriga ku samaystaan ceeshka. Maanta waxaan idin tusayaa si aad uga maarantiin supermarketka ceeshka laga gadanayo mid aad guriga ku samaysan kartid oo saaid u fudud. Haddana waxaan idin tusayaa ceeshka sida loo sameeyo. Waxaan koobkan kusoo shubtay biyo qandaca. Waxaan ku darayaa hal qaado fixisa iyo sokor ah. Kadibna waan isku qasayaa intaas. Waxaan baaquli waan kusoo shubtay bur 3 koob. Waxaan ku darayaa cusbo. Waxaan ku dhex darayaa burka koob halfkiis oo caano garoor ah ama yogurt. 3 qaado saliid ah. Waxaan kaloo ku dhex darayaa fixisadii diyaarka noo ahayd. Kadibna qaado baan ku qasayaa si burku isku qabsado. Haddaan ugu cusub tahay subscribe inoo saar gambaleelkana furo si aad mar walba videoga soo geliyo kugu soo dhaco. Videogana asxaabtaada la share gare si ay uga faa'iidaystaan ayagana. burka waxaan saarayaa meel nadiif ah kadibna 5 daqiiqo ilaa 7 daqiiqo baan xashayaa. Waxaa la rabaa inuusan gacantaada ku dhigin, saas ayaad ku garanaysaa inaad si fiican u xashtay burka. burka markaa si fiican u xashtid waxaa ku ridaysaa baaquli nadiif ah saliid marisay. Kadibna waxaa sameynaysaa waa dabooleysaa baca ku dabooleysaa ama waxaa ku dabooleysaa maro nadiif ah. Kadibna waxaa dhigaysaa meel kulul 1 saac. 1 saac kadibna asagoo fuuray baa ka soo saaranaysaa. meel qabo haddaa joogtid waxaa sameyn kartaa ovenka on ka dhigaysaa like 5 minutes camal. markuu wax yar kuleel noqdo ovenka waa damine. burkii aad dabooshe oo bacda ama ku xirtay ama tuwalka ku dabooshe waa dhex gelinaysaa ovenka. dan waa u daynaysaa 1 saac. asagoo waxaa soo saaranaysaa hadhow burkii si fiican kugu fuuray. burkii waa kan si fiican buu u faxay ama uu fuuray. haddana waan jarjarayaa. waxaan u qaybinayaa 7 xabo. kadibna 7daas xabo markaan aan ka dhigo xabad xabad ayaan u kala bixinayaa. ceeshka xabadii horeysa kala bixiyay. marka sidaan aan rabaa inaan u sameysto inuu ii waaweynaada rabaa. qafiifkaana rabaa inuu ii noqdo. laakiin hadaa rabtid inaan qafiif ka dhiganin waa waaweyn ama burbura ka dhigan kartaa. sida rabtid aad jeceshahay u sameysan kartaa. birtii baan dabka saartay. haddana way kululaatay. saliid yar baan ku shubayaa. haddana waan tirtirayaa. birta canjeeladan waa ku karsan kartaa. haddii kalena pan waa ku sameysan kartaa. labada midka haysatid labadaba waa ku sameysan kartaa.
ceeshka dhan saan wada karina kulli ilaa aan ka dhameynayo kadibna waxaan ku ridanayaa saxan ama baaquli oo aan dhex dhigo tuwaal si uu u qalalin waana daboolayaa xabad walba markaan ku rido. ceeshkan wuxuu ku fiican yahay haddaa fridge-ka gashatid xataa ma qalalayo like 5 beri camal fridge-ka ku haysan kartaa. marka waxaad sameynaysaa container ama caaga cuntada lagu rido baa towel nadiif ah aad dhex dhigaysaa oo qalalan kadibna waa dabooleysaa markaas fridge-ka gashanaysaa. next day haddaa rabtid inaad isticmaashid microwave-ka gashanaya waa kululeysanaysaa and that is it. asagoo soft ah baa ku isticmaaleysaa. ceeshkii waad aragtaan sida kusoo baxay saaid buu soft u yahay buuna macaan yahay anytime baa ku cuni kartaa. ceeshka waxaa soft ka dhigay waxaa waaye yogurtka aan ku daray so make sure haddaa in badan sameysanaysid ama ceesh badan aad sameysanaysid inaa yogurt fiican ku darsatid. I hope ceeshkan inaa ka heli doontiin and videoga maanta intaasuu noogu egyahay. please haddaa subscribe noo ahayn aad channelka ku cusub tahay subscribe noo saar. haddii aana la joogteen waa mahadsan tahay. ha ilaawina videoga inaa like saarteen commentsna ii dhaafteen si aan u arko commentskeena and if you guys try recipe gan let me know inshallah. waa inoo iyo video dambe inshallah.